السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قالقا سولو هذا يا إذن الله يهمل كستو دونك جوكتان با صباح وناكسن ظهر وناكسن وقت إذن تا وقت وناكسن الحمد لله إلهكم هاتسن دب سوسو كينا عليي أهودا الحمد لله ما أنت محان وضع ما أنت وحان أركي ويلكي إسكاليغايي مددان با أهودا ماركتي ميديا قبصدي oo iska dhigayay naagta iska dhigay oo Soomaali Maxamed ay ku shamuumtay amba ay kulligood ku yaaceen oo daahir cali shircid kastaba ay wadwaday oo maaragtay inta meel kasta laga caawiyay dadku uu calool jilcay u qiiroodeen uu maaragtay uu wada kaceen baahi iyo dhibaato gabar dhibaataysan oo baahan oo duruufaysan markay iska dhigiyay oo meel kasta looga kacay xoolo la siiyay lacag la siiyay maaragtay giftiye la siiyay aduu kor loo qaaday wiilkii laakiin gabar ahaan loogu markaas lagu caawinayay oo aniga ka calool xumado oo inta ooynaya adyaabay sida caloosha ku horeyso waxa dhacday in la soo ogaado inuu wiil yahay oo la soo qarxiyay amba la soo kashifay ilaahu hana kashifin oo lagu soo maaragtay lagu kashifay inuu naag ahayn oo nin raga yahay maaragtay saadarteed Soomaalida ee ku yaacday ee haddana la cambaareeyay ee dhibaatada foosha xun maaragtay laga daba tagay ee la ceebeystay ee la xiray in waxba loola harin maadaama dadku kal iyo laab marka hore u caawiyeen marka dambena kal iyo laab ayay u dabagaleen oo ceebtiisa oo dhan u soo saaray wiilkaas waa wiil yar oo 20 jira laakiin wuxuu asi iyo hooyadiisana ahayn oo problemka hooyadiisa la ogeeyay horta ilaahay dhibaataha naga haayo aan noocaas inta iskaga dhigno adoo nin raga aad dumar inta iskaga dhigto waalidkana kula ogaado taas waa dhibaato waana fadeexad waana iimaan darro ay ku kaceen reerkan iyo dambi weyn ay ku dhaceen oo ahaa oo ummadda Soomaaliyeed qalad ay ka galeen naftooda iyo qalad ay dambiyo badan ay ku arursadeen ayuu ahay hooyada iyo wiilkan hooyada yani igu kaliftay iyo gaajo iyo dhibaato iyo duruufo aad tiro badan ay sheegtay reerka ظروف كستو تماذا لكن كما عند عوكر قفك بني آدم كذا وحن عن سبيل يدروف يجيسي أضو قف دمرة إن عنين إسكالكتو عم بقف نينا أضو إن الدمر إسكالكتو وتطل وقلت واحد والدفاع يوم بعد له تاجر يهرت مجرته لكن هذا أيضا هذا واحد تاجن ريرك إن آد ولبعضهم عيان oo dhibaatadii ay maaragtay ka cabanayeen marka hore mid ka badan ay hadda haysato waayo marka hore waxay ka cabanayeen gaajo kaliya hadda laakiin fadeexa adduunyo iyo fadeexa aakhirana wuxuu jira ilaahay waclan allah taas ilaah ku xisaabtamayo laakiin adduunyada ayay ku cadaaban yihiin waxay adduunyada uga cadaaban yihiin waa la xiray reerkan waa la cadaabay hal la xiro oo si kasta Soomaalidu inta uga daba tagtay oo ceebaysatay oo waxa la yiri maaragtay hatta ximitis taranka ayaa la muujiyay inuu nin yahay macnaha oo la faagfaagay ninkan si xun loo wiilkan yarka si kastaba ha ahaatee hadda dhibaatadii haysatay barigaas mid ka darna haysato waana arki doontiin wadanka way ka tageen Kenya oo Soomaaliya aad sida wiil sheegayay ma hubo asigaba ma hubo laakiin saas inaan maqlaan jeclahay hatta gaane meeshii tageen imtixaan ku haysto marka bal ila dhigaysta wiilkana uu ka naxay wadaadkan daaci muqtaar marka bal aan isla dhigaysano insha Allah waxaan loo mid soo kala inaan ku dirno wiilkaaga xabsiga u dirno kulanti cali wanaagsan daawadayaal soo dhawaada meel kasta joogtaan halkaan naga daawanaysaan YouTube channelkeena Maxamed ayaan la iyo sidoo kale barteena Facebook Maxamed ayaan la guud ahaan barnaamij bulshada ay naga daawanaysaan muuqaalkana waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa sadar raaca koombaad ku soo aragteenba waxaa jiray nin dhalinyaro ah oo magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayuu ku sugnaa ninkaas dhalinyarada ee dumarka iska dhigay isagoo markaas baraha bulshada joogay live galaaye muuqaalo soo duubay isagoo aan markaas laga aqoonin inuu yahay ama qofna aysan marnaba ku dhaaran karin qofkaana nin rag dadka ay aamin waayeen dib laga ogaaday arrimahaasi oo dhan waxaa timid kadib markii dhowr leef uu tagay markii dambe lagu soo fashiliyay leefkii daahir cali subxata waxaa jira mar uu sheegay inuu joogo Mombasa
uu sawirka la keenay iyo isaga uu dumar inuusan isku mid ahayn sababtoo uu xataa calooshiisa markaas muujinayo leeyahay uur 4 bilood aan leeyahay ilaahay amarkiis ilaa hadda dadku way la yaaban yihiin xataa mararkaan marka ka sheekeynaya aniga aad oo la yaaba laakiin duruufta uu sheegtay ayaa waxay ahayd in hooyo dhankeeda ay tahay hooyo maanta markii dhinaceeda lagaa soo marana waa dareemi kartaan xanuunka ay leedahay oo aan marna bixinayay hooyadiis aysan marnaba agtiisa ku baahanin waa arrin aad u xanuun badan qof kasta oo Soomaali ah ama damiir lehna uu aad u dareemaya qalbigiisana ay taabanayso iyadoo la heli karay waxyaabo kale oo sidaas ka qurux badan inuu sameeyo haddana intan ayaa qorneyd in uu sameeyo uu gabar isku ekeysiyo uu dhar xirto iscadeeyo make-up marsado faruurihii gaduudsado labiskii dumarka xirto codkii bedesho waxyaabahaas oo dhan ayuu dabcan duruuftii markaasi haysatay sida isaga uu sheegay ay u geysay safar aan kaga soo ambabaxay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya waxaan ku arkay ku wada kulanay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta hal diyaarad ayaan soo wada raacnay already waan dareemay inuu asaga yahay maaska ayaa u xirnaa hooyadiis ayaa la socotay qofkii wax fahmi karaan social media ku jira hore ayuu ka fahmaya qofkan qaabkiisa marka safarkoodan wuxuu kusii qotamay usii jeedeen magaalada Galkacyo gobolka Mudug oo uu sheegay in hal gabar oo keliya iyo isaga ay hooyo dhashay gabadhina dee ay tahay qof la qabo reer leh aysan dulsaar ku noqon karin maadaama meel ay degan tahay haddana isaga iyo hooyadiisna dee magac xumo barihii bulshada ay ugu jiraan xoogaha gabadhi sidaas ay iyaduna uga gaabsatay uga xishoonaysay arrintiisii nin dhalinyarada daaci mukhtaar ay dhahaan oo SCC qaatimo ku nool I think inuu meelahan joogo Buuhoodle ama Laascaanood adig meelahaas uu joogaa ayaa shalay waxaa jira muuqaal uu soo duubay uu aad kaga damqanayo uu dhahay aniga ayaa diyaar u ah wiilkaas iyo hooyadiisa inaan caawiyo oo aan garab istaag u muujiyo maadaama xaaladda ay mar uun hooyo ay soo hoos gashay marnaba indhaha lagama qabsan karo waa nin aad u fiican dareemay xaaladda markaasi dabcan hooyada ay ku jirto ilaah ayaa irsaaqada baxsha ninkaas dhan wallaahi waa calool xumo inteeda la eg inay haddana dhibaato cidday haysato tii hore haysata mid ka daran inay dhibaatadaas ay kusii badatay wuxuu yiri wiilka yar guriyaan degnay gurigay degeen buu kasoo hadlaya hadaaye oon arkay wiil kale ayaa kasoo tabinaya wiilkan ayaan la ahay wuxuu yiri guriyaan degnay guriga aan degnay banaanka u baxay waxa untii raadsadaan maagay aan damcay markaan banaanka u baxnaan dadka deriskana fiirnaayo markaas waxay sameynayaan wayna maaragtay nacaynayaan waa dhalinyaro wuxuu yidhi anoo kale ah waa kuwa iga yaryar waa kuwa yara iga waaweyn waa nooc walba isugu jiraan waa dhalinyaraan aad u xishoonaynin oo maaragtay dee waxa hadda qof weyn uu ka gaabsan lahaayo qofka bini'aadanka maahan maanta dhan ila dhoo haa waa kii naagtiis ka dhigaya haa waa kiisaan sameynaya qofka nolosha bini'aadanka in lagu ciriiriyo ilaahayba maaragtay ma ogolo adna ma ogolid qofka bini'aadan adoo ah in nafta lagu dhibo oo nafta lagu keeno oo maanta dhan lagu daba taagnaado cid ogol ma jirto Soomaaliya waxaadan jeclay qofkaa la jeclaan ilaahay wuxuu ku yiri waxaad jeceshaa walaalkaa la jeclo waxaad necebtaa walaalkaa la nac kuma u dhihin waxaad neceb tahay walaalkaa la jeclo laguma dhihin laa ma lagu dhihin waa waxaad necebtaa inaan walaalkaa la nebcanaatid waxaad jeceshaa naftaada aad la jeceshaan walaalkaa la jeclo macnaheedu ma ahan in dadkan reerkan maalinay qalad geysteen lagu cadaabo ilaahay macbuudka ahay ayaa isugu la xisaabtamayo midda kale ilaahay ayaaba aad jecesha adigaba inuu dembigaada kuu dhaafo oo kuu dembi dhaafo oo maaragtay dembiyadii aa gashay ilaa maalin walbaan dambaabayna waan ognahay oo ilaahay noo dhaafo ayaan jecelnaa oo dhahnaa ilaahu nacafi aan dhahnaa afarlaad ka saac haddaad jecesha inuu ilaahay ku cafiyo aduuna ummaddan iska cafiyo iska daa ummadda faraha ka qaad wuxuu yiri wiilkii raay cuntadii baan rabnay inaan doonan meelaha wax soo maaragtay banaanka u baxna naftu guriga aan joogno waxba ma laha yiri haddana way soo degeen waxna maba haystaanbo markaan banaanka u baxnano dhalinyaraasaa wax alla waxay rabaan hooyadii ku dheheen hooy anay raban inay dilaan buu yiri hooy anay iga celcelinay subxaan allah hooy wuxuu yiri anay iga celcelinay iga hor joogtay ilaada ii daayo wiilkii anigii kama celi karo hooyada way caynayaan waxay damcaan oo afkood soo qabto ayay ku hadlaayaan wax kasto ay rabaan ku hadlaayaan wax kasta ay ku dhawaaqayaan hooyaday hadday rabaan inay dilaana ani kama celi karo ma haysto awoodan uga celiyo
على الحمى حرية لأنت أدونك إلهي وحكا حن ملاها ويلكاس يركا يويدي أمانها للسيو سومالي وحي قالن الدنبي إلهي كل حسبتما أدونكو دنبي يدو لها عروسانينا أو أدونكو دنبييني هداد لهدان حسنات هسينينا أو إسكداي أو دباتة قالن دباتة كبضن يانا مرسينين يا لقى عرسني أنت لقى عرسك الوابل الفضيحي عداس ميركستا لقى دبتي حبس يالا لقى وانا دباتي نولو مصمين هذا سومالي إسكا آديني ولا يالو إسكداي أو قفك أو أرحم كرها أو أرحم إلهي كعبصدا إلهي هلوغا بقو دad كان ويلكو حويل أفر جيرا إسدورا مالنتي وحن وإنا وحن أنا هيرو سكرو قوا بريجين مركور نوشيغ أو مارك ناكت سبتو سيريغا ظروف سكران قبا ويل جاجا نايسو وحبا مشق شقا مهيستي وحبا مهيستي صدرتي داي وقصبتي إيه هويدا ودروف هيستو ظروف كستو هيستو دربغاس يا حاكولا أنت هورتو وحو سميه لكن ويبا دعين وحيد هداي دعين سيء دعين إلا نحن معها بليس وحن كل بدك دمقنا إيه الصومالي ده عن كل تلاين وكاس داعي مختار وكان حي وحول حتى قولي بان لا يهي إنا مدرسة كريغا وطلقا إنا الوحكو برتان بان وطلقا لكن أدين كايان إذن سينا ياي هالي يي ماذا ونفتا أيا وحل بكا مهيبسا نف بني آدن هداد نف نول هدي آد بدبادسو أم بوحكو بدبادلاد آد وحكا إنا بها آهاتي آد وحكو يالاتو قفكاس وأهل جنو هلا بدبادي دادكاس بني آدك إيه وحول بنان ما آدي كرن ما شقاي سكرن ما توك سكرن وحما قب سكرن ما هالي كرن حتى أي marka dhibaatada shalay haysa ka badan baa haysta reerkaas ha loo gurmada biliis Soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay xaaladii aad mar gashay mar labaad kugu maceliyo ee noqon nin dhalinyaro ah ad adag shaqaysta hooyadiis maanta dhibaatadii duruufta ay ku jirto adiga ayaa ka saari kara ilaahay ayaa ka saari kara laakiin kasoo koo adiga ayaa maanta wiil adiga ayaa u ah aysan cunsuriyeen doonin wiilkaasi dhalinyarada daawad maxay adig kula tahay fikirka ay qaybta faalada noogu reebi kartaan muuqaalkan dog soo gaar laagin oo saar si dad badan noogu gaaro aad baad umahadsan daawashada muuqaalka channelka waa channelka subscribe gareebalka داعم مختارنا عادي ومهتسن ياهي وحن ليناي داعم مختار وإلهي أجري حسناتها كاسيو رير كاس قرب قبل كوقا وقعنت كوقا وإن شاء الله بإذن الله كريم إلهينا جنة الفردوس أدينا كوقا بدلو صومال محمد نوحن ليهاي ويلكلا وكداونا حتى ويلكن عيان لعان أهين أياجيرو oo soo hadla caloosh kuuray wiilka yar Mas'uud la dhaho wiilka yar gabadha iska dhigi jiray hadda maaragtay dhibaata dadka wiilkan haysato iyo hooyadiis sokor qaba waa jiran yahay hooyadu wax ma haysato guriga wax ma yaalaan waa la soo musaafir way soo baxan kulay bal soo musaafir iyo iska soo baxan anu ma aqaan biliis Soomaaliya caawiya waxaad u qaban kartiin hadda si alla dartiisa ugu qabta si ilaahay dambiyadena uu noogu dhaafo iyo maaragtay dambiga waalidkeena waa jecelnahay inaa ilaahay noo dhaafo in ilaahay dambiyadena uu dhaafo wax wanaagsan loo subiyo garab hala siiyo yaa la tagoorna la soo dhaweysto soo wiilka bashay wax maaragtay haddii ay jiraan qof heli karto inay u sameyso mashruuc wax oo shaqo abuura ha loo sameeyo marka yaa lagu daysan wixii hore sameeyeen bini aadanka uu qaldama allah maqaldam waa ilaahay bis bini aadanka afar laad ka saacan qaldana marka qaladka galaan waa qalad wax ku raadsanayeen ilaaha wuxuu dambigood u raac laakiin adigu dambi ayaga ha ka gelin biliis dambi ha ka gelin adigu ayaga oo ha ku naar mudanin adigu ayaga dartooda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو قد وكسو قار لايك كومنتي سبسكرايب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته